Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiran iyo inta codkayga uu soo gaari doono gadaal muuqaalkana ka daawan doonta. Bacda salaan qiimo iyo qaayo mudan walaalayaal, sidaan hore uga soo faalooday fiidiyowgii ka horeeyay, waxaan doonayaa maanta inaan intii cilmigayga halkan nigula wadaago walaalahayga qaaliga ee ku saleysan qodobka rajo. Qodobkan rajo aan doonayo walaalahayga qaaliga inaan laba qaybood ama laba firqood u kala bixiyo. Qaybta koowaad ay tahay fikir rajaysan oo rajo ku saleysan. Fikirkaas qofka bini'aadanka insaanka noolaha markuu fikir sameeyo waxaa la doonayaa sida caadiyan ah inuu qorshe u sameysto oo fikir qorshaysan noqdo oo guuleysta ama daciifa oo guul dara aad kala kulanto. Qodobka labaad walaalayaal ama qaybta labaad waxay tahay niyadda ay haminaysan ama hamnigeeda wanaagsan yahay. Niyadda wanaagsan qofka markuu hamigeeda uu gashto hamigiisa oo niyad wacan way tahay, waa niyad riyo ku dhisan. Riyadaas oo marna guul dara kala kulanto haddaad ficil ahaan u fuliso, marna ay noqoto mid riyo ah oo daciifta ayadana aanan guul aadan ka gaarin. Qaybta koowaad haddaan sii falanqeeyo walaalayaal, aan sii qoton galo fikirka qorshaysan. Goormuu fikirka insaanka uunan guul helin uu guul daro la kulmaa? Waa marka bini'aadanka inteena badan 80% aan ficiladan aan ku dhaqaaqno qaabta daran. Ficiladaas oo ah inaad talo ka raadsato ruux kale oo insaan oo adiga kula mid ah, ama xidid qaas ah ha kula yeesho dhow ama xidid dheer ha kula yeesho aqoon haniga dhaxaysa. Haddaad fikirkaaga iyo qorshahaaga la wadaagto, markasta wuxuu noqonayaa mid guushiisa aan gaarin oo daciifa ama saqiirooba. Maxaa yeelay fikirkii aad adiga qabtay aad ku haminayso qorshe inaad u dhisato ayaa tala qof kale oo ayadana oo talada ay ku dhigsan tahay fikrad qof kale aad ku soo daraysaa. Sidoo kale waxaad abaabulaysaa intaasoo fikradood oo dad aad ka soo ariirisay. Ogaal adigoo u ah waxaan tusaale u soo qaadanayaa maanta haddaad gaari aad haysato oonan taagiisa aanan awoodiisa aanan badnayn oo fagaaro weynna aanan jeexi karin, aad doonaysa inaad meel dheer kula safarto oo dhaba dheer aad ku jeexdo. Dhabadaasna aad doonaysa inaad sidaad adiga ugu fikirsan tahay dhabadaad doonto aada qaadinoo dhabooyin badan intii lagu tilmaamay al-uutama dhaba jay leh oo dhooqa leh oo ciid leh oo gaarigii meel u dhaqaaqa aanan lahayn, oo fikradaadii xataa xasuustii ka luntay, adoona cunto fiican ama waxaad gaadiidka soo saarato ood ku qorshaysan aysan jirin, oo aad xataa ku fikirin goormuu shidaalka ka dhammaanaya gaadiidkan. Wuxuu noqonayaa gaadiid aanan meeshii laga rabana aanan gaarin, meeshii uu ka yimaadana uu ka fogaaday. Al-uutama waxaad noqonaysaa qof fikirkiisii ka daciisooway laakiin laba dhex uga banjaray. Oo laba dhex waxaan ka wadaa aana gaarin meeshii guushaadii ahayd. Meeshii hore aad ku fikirayso qorshaha aad ku dhisanaysidna aad xasuusan weyso qaabkii aad qorshahan u soo dhiso. Uu noqdo qorsho markaas noloshaaga ataag ku sameeya ama go'doomiyo oo fikir badan ku geliya, waqti badanna aad kala kulanto, caqabado badanna aad kala kulanto, aad hor u socodna yeelan weyso. Waxyaalo badan noloshaada aad qabsan lahayd waqtigaas aad ka faa'iidaysan lahayd aad sameyn weyso, nolol maalmeedkaagii xataa noqdo mid isku qasma. Sidoo kale markuu fikirka qorshaysan uu guul gaari karo walaalayaal, oo mid guuleystay hadafkiisana u dhabar adeegay noqon kara, waxaa weeyaan markii fikirkaaga aad kala dhigtid
maxaase aad isweydiiso su'aalahan soo socdo. Awood jismiyeysan ama jismiyadeeda ah ama awood fikirkaaga ah. maskaxiyan awoodda maskaxiyan iyo jismiyan ma awoodaa. maskaxdeedana ma awoodaa waxaan inay qorsheyso kow ahaan inaad ka fikirto. hadday qorsheysana jismiyan ahaan ma haystaa awood aan ku howlgalo oo ma xamili karaayo ma u dhabar adeegi karaa inaad isweydiiso. aragtida labaad waxay tahay inaad ka fikirtid digtoonaanta. maxaan khasaare kala kulmi karaa maanta? sida gaadiidkii haddeer aan igu soo hadal qaaday walaalayaal. fikradda kale markaan ka waramayay ayaa waxay tahay gaadiidkan daciifsan oo rabo inuu masaafada dheer jeexa, uu rabo inay meel dheerna iga rida, ma yahay mid beri ka maalin dhabadan aniga u jeexay ku socon kara. haddii shidaal uu u baahdana ma shidaal baan u qaadayaa mase meel baa jidka aan ku leexanayo shidaalo ah ama goob shidaal ah aan shidaalka uga soo shubanayo. haddii aan safarkan aniga jismi ahaan cabitaan fiican iyo cunto fiican ma haystaa mase waqti oo xiliyo ay furan yihiin magaalada oo ama dhabada aan ku jeexanayo markaas ma ka helayaa dukaamo aan wax ka iibsado. qarash ilaa iyo noocee baa iga bixi kara. fikradahaasoo kale ayaa la doonayaa markaa fikradaada qorshadeeda inaad samayso gaadiidkaasoo kale kusoo tusaale qaadato. al-uutama walaalahayga qaaliga, xalkiisa goormaad gaari kartaa dhabada gaarida aad ku wadato. xalkiisa waxaad gaari kartaa qorshahaas markaad u dhabar adeegto, markaad karti u muujiso, markaad awood iyo farxad aad xaggaaga ka muujiso, markaad isdhiirigeliso, markaada la wadaagin qorshahaas allow ha ahaatee owlaadaada ama dadka aad xididka khaaska aad la leedahay qoyskaaga aada la wadaagin ilaa aad natiijadii arabta aad ka gaarto markaas aad fashiliso. because waxaa la yiri satan bili-aadanka inta badniishaha oo badan oo maskaxdeed oo ogaato qorshahaaga walow shaydaankaa waswaasiya dadkii kugu soo jeediya weligaa waxaad rabtaa hadafkooda inay la gaaro dadka lalama qaybsado. mid waxaa jirta walaalayaatan labaad haddaan niga sii qotan galo, niyadda ku saleegsan hamiga wanaagsan oo wax wanaagsan aad ku riyoonaysa laakiinse aad rabto inaad ayadana mowqif ka gaarto. sidee aad ugu khasaaro maxaa kuu keeni kara, maxaase uga dhigi kartaa mid guuleysta oo riyadiisa markastaba ficil ahaan oofin kara bil'aadinimo. walaalahayga qaaliga, haddii aad noqoto qof tusaale dadka kale u fiiriya, hadafkiisa ama mowqifkaas uu asaga ku riyoonaya la barbardhiga riyooyinka dadka kale, mid khasaaraad noqonaysaayo riyada bili-aadankaaba isku mid ahaanba si kastay isugu egyihiin. haddii aad cabsi qabto oo qof aana noloshiisa ku kalsoon aansan ahayn, waxaa la kulmaysaa markasta aad niyijab kala kulanto waxaad doonaysaa inaad guushooda gaarto. haddii aad noqoto qof dadka kale aanan tiisa ka hormariya oo markasta mowqifka dadka kale u dhiirigeliya, ku waxeeya, u adeega, tiisana meel dhiga oo ka caajisa, qofkaasna wuxuu noqon doonaa qof aan weligiis riyadiisa rumayn karin. goormay noqotaa laakiinse riyada mid aad guusheeda iyo miraheeda iyo caanamaalkeeda la arki kara aad dhalin karto? riyada ay ku saleegsan sidaad la socotiin walaaleyga qaaliya niyadda ee hamiga wacan waa midda aad isku dhiirigeliso, isku taageerto, taageerad buuxid aad isgeliso, aad karti muujiso, sidoo kale
isfarxad geliso ood farxadaada ku saleegsan tahay riyada aan ku riyoonay markasta aad ku riyoonaysa soo xasuusata waxaasaan jeclaystay inaan gaaro aan ku riyoodaa taasoo dhiirigelin ay kuu tahay caqibaadka aad kala kulmi karta inay dhabar adeeg ku saleegsadaan ama dhabar adeeg aad ku muujiso caqibaadka aad kala kulmi karta dhabadiisa markaad haysa aad rabto guushaas inaad gaarto markasta aad farxaddii aad ku riyoonaysa aad soo xasuusato waxaad noqonaysaa qof aad adag oo faraxsan markaad caqibaad aad la kulanto adoo ku dhaba jira dhabadii aad doonaysay hadafkeeda inaad gaarto sidoo kale walaalahayga qaaliga niyajab wax la yiraahdo aad iska ilaalinaysaa waxaad tusinaysaa inaad naftaada aad ku dhiirigelinaysaa inaad firfircoon tahay waa wax maskaxiyan aad ku beeri karto waa inaad laakiin marka hore isjeclaataa intayna badan insaanka waan dhahnaa hadalka waa isjecelnahay ama waan iska fikirnaa laakiinse waxaad arkaysaa inta badan dad aan isjecleen haddii ficil uu yimaado isjeclaashaha ma aha inaad isqurxiso adiga kaliya aad isnasnashto aragti ahaan waa qalbi ahaan inaad iska jeclaataa inaad adiga lambar 1 ama qofka koowaad aad tahay aad taageeraha aan naftaada eg tahay nafta koowaad aad taageeraha siinaysid ka hormarinaysid qorshe kasta uu insaan leeyahay markasta naftaada ee lambar 1 ay kuu tahay qorshaha koowaad markasta waxa adiga ku riyoota ama waxa adiga ku fikirta aad doonaysa al-ultima waxaan ku soo afjarayaa walaalayaal nafta oo dhiirigeliso nafta aad qurxiso nafta aad hami geliso nafta aad adeeg ka dhigto oo karti u yeesho nafta aad taageero siiso oo garab gasho naftaada oo naftaada aad ku dharbaaxdo ku jiido inay markasta taan dadka kale ka qiimo weyn tahay ee dadka kale aad ka hormariso isku taxalijiso waxay kugu qaadataba waxaa hubaal ah markaas walaalkayga Soomaaliyeed dhageysanaya inay naftaada noqoto midda ugu dhiirigelin badan iyo midda ugu kartida badan ay noqoto mid markasta danteeda ka shaqeysa ee dan dadka kale iyo rajo dadka kale ayna fiirin markaas mid waxay noqonaysaa markasta hadafka ay ku haminayso ama ku rajeynayso mid ku guuleysata oo markasta ayada ay meel iska soo saari karto isku tashanaysa bilaadanka kalena aanan ahayn mid wax ka sugto mar walba facid ha ahaada ama mid lamida oo la dhagiya ha ahaade ana waxba ka sugaynin oo ilaahay taageerihiisa iyo taageeraheeda kaliya ku tashata mid ayada kaliya isku tashata ahaato mid ayada farxad iyo reereen ku noolaata ahaato intaasaan doonaya maanta inaan nila qaybsada caawata walaalahayga qaayaha iyo qiimaha iga mudanay Soomaaliyeed waxaan iga tagayaa dhammaantiina salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan dunida iyo aakhirada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod xiisa badan walaalahayga qaaliga